marka waxa dhacday qiso kaleeto oo dhacday Soomaalida dhexdeeda waxayna rogay waa qabyaalad iyo qabaa'il weey waxayna rogay aad iyo aad gabar iyo wiil ba isjeclaaday gabadhaas iyo wiilka isjeclaaday waxay ahaayeen laba qabiil bay u kala dhasheen waa Soomaali bay ahayd waa muslimiina gabadhu waxa isku digaana isku meel bay ku soo koreen iskool bay ka wada bixeen isku meel bay ku wada dhasheen gabadhu waxay ahayd qabiilka loo hayb sooco wiilkuna wuxuu ahaa qabiilkan ay muxuu ahaa waxay soo cabayeen mafaaja waxay tii way jeclay wiilkii gabadhu way jeclayeen markaas wiilkii waxa la yiri adaan secondary dhamaysan baa lagu dhoofinaya ma bajoogisid gabadha laga kaxaynaya waa lagu dhoofinaya gabadhu gabar qurux badan bay bixiyeen gabadhu wax u bixiyeen qashin ubax ka baxay qashin ka baxay qashin ubax ma ka baxay qashin ubax qashin ka baxay meel qashana ubax ka baxay si ugu raxbaantay tii qashin ubax waxa loo goosan karin waa qashinka qabiilkeeda ku yaqsayaan waxay tiri ilaahow adaa qaniya gabadhii baa waxay ilaahow adaa qaniya oo quwile oo weyn adiga quluubaha ogoon ka qaldimay ruuxa adiga wixii naga qarsoon caadba ka qarin quraanjada kulay tahay adaan qurusi raawayeen qaadiru raxmaanow adaan kuuga qayshaday ummadii fariintayda maqal weydin farayaa fimiilka tihiin reerka yaga waad filfilisaana sidii aan fadara weynahaad naga fogaataan inaan fayriskii idinku dhicin cudurrada faafa ama aan fahmadu in ka tagin fiirsha hadalkayga faral iyo sunnaba waa tukaday waana fiicnahay foolxume ma saarniyo aniga foodi qaawaniyo farasiiska diga jeceshihiin faajirkiyo gaalka waxaad igu fidmayseen furqaan diinta laga waayay facsharkii qiyaamaha markaan la isla fogan ruuxna qof walba wuxuu u falana farqa loo saaro qabiilkaad ku faanaysid iyo qoladii hawaay ibnu aadam baan nahay ilaah uunka wada keenay ummadii rasuulkaana hoo waan ogsoonahay shahaadateynka iyo quraan kaan akhrinayay gaalkan ilaahay aqoon way ayadayaane anigoo islaanana rabbiyow way anfinayaane ehel iyo inaan nahay walaal way inkirayaane allah way iga aarmaanta waan kuugu aaminay ilaa mataankaygii aan jeclaa ka xaystee ilaah wadaan ku dacwoode ilaahay wadaan ku dacwoode bay gabadh bay tiri waa calool xuquuq dara sidii loo kala kaxeeyay isma calafan maqrib loo kala kaxeeyay waa la kala tuuray waxay tiri caqiido waxa la weydiiyay ruux aqli leh cilmi inaad ugu fogaaday janna u cadahay asiiskay wuxuu caayimay caado laga ma dhigo aniga caynkaad ku dhaqantaan ba iga cajabiyo go'aan ka soo gaara geedkii aad nagu xirtay dad yahow yaabaye diirkeenu waa mid qura dad yahow yaabaya diinteenu waa isku nooc diinta laga waa waxaad noo daliilsataan oo isma geyno waa kitaabka furqaana laga keenaya sunnada rasuulka kaleey salaatu wasalaam waa laga keenaya soo wax jaahilnimo ma aha wax ilaahay looga fogaanayo diinta laga waa waxaad noo daliilsateen go'aan ka soo gaara geedkii aad nagu xirteen war jaahilnimadii hore jaahirka iska dhigay nin walba gabadhu jeclayso la joogaya intaasay ku soo gabagabaysay gabadhii haybsooca lagu dhigayna waa ku salaamaya walaashay Sahara Cabdi Xirsi wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska farxadda iyo ugu timid abwaanada ma sha Allah